لحجران وأمان ديد السومال أنا كتبه أنا أقول لحدن تيران كتجي بنيك الدون عر حدا ركتين سو دق ما وعان سيا كوكاتشان واقعنا نيك كرسي واقع والله بالله تالله أنا أقدم بيني وأنا نندل كبابيني هدي الدورة ويا سومال لا ولا بابية أنت يا تشوف تانا ونسود عسيل نايم كيف شيءنا أنا على كرسي خيرني ما نقولني إن حاب سلا فدي دستور كي كو قرنتي مسائل عبا كو قرن سمد حوينا كو قرنتي ما فرنسيس بان أنا وما أنا دارود هاي ما تعب كان صدق السنوات تعيني اسكولة دكتوراه الدنيا معيدا كي لو سو دولار لو شيء يعني دولين دبدن بيسوي أمسنا مين هدو عبد الرزاق تجي ياسين باله أنا جوال اللي جابه يليساك هو الشرعي أنا كو قرنيني waxaan oran lahaa maxkamadda tago yaasiin loo wada soo dhaaro xildhibaan indho ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay iscasilaada gudoomiyihii hore golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaana uu sheegay xildhibaan indho in ay xaq u leeyahay gobolka Sool inuu qaato gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ay u dooranayaan Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sidoo kale xildhibaan indho sheegay in haddii loo dooran waayo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Faratoon ay intooda jooga Soomaaliland ee reer Laascaanoodna ay iska tagi doonaan haddii loo dooran waayo gudoomiyaha golaha wakiilada Faratoon waa sida uu hadalka u dhigay waana kan xildhibaan indho oo arrimahaas iyo sidoo kale arrimo kale ka hadlaya horta loolanka la gelinayaa waa mid siyaasadeed gudoomiyihii hore kursigiisii unbaa bannaan meesha kiisaska maxkamaduhu markay socdaanna golayaashu shaqada maxkamadaha ma inqilaabaan dacwad maxkamadda iyo gudoomiyihii hore baa socotay golaha badbaadi iyo waxaas dawaa hadalkiisii ku jirtay waa kufsi ay maxkamaddii ku sameeyeen golaha wakiiladu macays casilaadiisu marka labaad kuwale waanu ka aqbalaynaa waa kuwii u diray ee yidhi golaha badbaadiyo istiqaaladda weydiistay dee waxaan u malaynayaa inay dembiga ku ogaayeen annagu maxkamaduhu markay arrin ku jiraan kamaba hadallo hal kursi baa maanta dalkaa ka bannaan halkaa kursina ninkii midna 41 buu helay midna 9 reer baana leh anaa odhanayo ku celinay hadduu cabdirasaaq tagay yaasiin baale aniga waa la iga yeelaysaa koodii sharciga aanay ku qornayn waxaan oran lahaa maxkamadda tago yaasiin loo wada soo dhaaro waayo food u haray 39 iyo 41 bay ahayd waa la waayay haddii goluhu marka maxkamaduhu shaqadooda dhammaystaan dee laba gudoomiye ku-xigeenna way joogaan ee meel goblantay oo shir guddoonkii oo dhacay maaha labaa jooga inta processku dhamaanayo anigoo jecel si aanu hawsha qaranka ee 6 bilood xanibneyd uu yaasiinoo hogaamiyo oo aan uga qayb galno inay noo fududaynayaan golaha wakiilada weydiisanay iyo maxkamadda ka horeysa golaha wakiilada inay noo dadajiyaan mar hadduu iska tegey cabdirasaaq waxba ka sheegi maayo intaasaan ka odhan annaguna waxaan u baahannahay gebiga iyaguba inaanu baxno yaasiinana hogaamiyo inamaa shalay lahaa raggani ma tegi karaan meesha inaanu tagno iyo in kale way u arki waana arrin siyaasadeed cabdirasaaq nin dhulbaahantoo gacanta u taagay ma jiro 5 nin ee golaha ku jira ciddii dooratay waa la garanayaa keligii baa la doortay oo la yidhi dhulbaahantay haddaanu dooranayn innagu aan dooranno waxa laaliya wuxuu sameeyeyna wixii doortay baa qaba wax dhulbaahanta shaqo ku leeyahay maaha intaa markan ka gudbo min fadlak bikulli ixtiraam maxkamadaha iyo golaha wakiilada waxaan ka codsanaynaa si aanu howlgalka halkaa joogeen 6 bilood aanu maxaabiista aynu siyaasadda uga xidhnayn ee ciidankayagii qaranka iyo reerahayagiiba la isugu duldumiyey si aanu u kala badbaadino waxaanu diyaar u nahay inuu yaasiin hogaamiyo oo aanu dhaqaaqno taasoo aanan shalay hayn taasi waa codsi
cid maanta inaan aflagaadeeyo kuma talagelin markaanu meesha tagnaana arki doontaa waxaanu taro 30 sannadood waxaanu tabcaynay baa 6 bilood lagu baabiyey ciidankayagii iyo caruurtoodii iyo dumarkoodii baa afka la isu geliyey dib dambe isagu dul qaadan mayno waxaan annaga naga iman gobolkayaga lagaga taliyo in cambaasho uu noo joogaa ciidamadii way noo soo noqdeen dhulbahanta isagaa horgelaya ciidanka maanta horgalaatiin hoosgalayaal bay ahaayeen iyo kuwa naga soo horjeeda maanta raggii waa iga wada tegey in cambaashaa ka nool iyo yaasiin haddii laga tegi waayo Saleebaan Cali Kooro Norweysna berigaa naga qabtay waa nool yahay raggii wuu hoyday gacantiisa midig baan noqonayaa anigu in cambaashay yaasiin sidii aanu u eriyan jirnay aanu u eriyanin sida noogu hawl yar ee noogu khasaaro yar baan u kaxayn almiidaan waasa dhaartaaya baa sugayaa iyo dhaqaaqii way xildhibaan cidda iska hor keentay reer Soomaaliland iyo waliba dadkii reer Laascaanood way xildhibaan war waa lagu soo duulay shirkada anagu waftigii baan ahaa ma aamusnaanayo in maalin walba la ilaa isaaq baa ku soo duulay Laascaanood magaalada waxaanu joognay 2005 kii baan halka ka dhaqaaqay ragga maanta jooga 18 sannadood bay joogeen kuwii 18 kaaba ka maqnaaba ku soo duulay dad baa lagu laayay baa la yiri waanu madaxweynuhu uu sheegay war halkan ay ka buuxaan waxay ahayd inuu tagnay inaanu ka wada hadallo 130 nin ee la sheegay waa 42 nin wixii dilayna waa la wada garanaya kuwa habar jeclaaba ku jira waa 42 baa miyaan afdhi loogu horeeyay sarkaalkii ciidanka watay isaaq dilayna ma jiro aan ka wada hadallo isaaq baan la dilay una oranine inaynu inagu isdilayeen isaaqina dilay maxaa u diidaysaa inta nabadda loo diidayaa waa inta liiskiina waanu haynaa raggiina waanu haynaa kuway magaha kala qaateenna waanu haynaa kuwii laayayna waanu haynaa maxay la gariirayaan ay u diidayaan nabadda iyo wada hadalka calan bay soo qaateen ciidan bay soo qaxay yaa daarooday ma Faransiis baan anagu meelaan daarood hayn ma tacabkan 30 sannadood tabcaynay iskuulada iyo dhakhtarada la duminay ma ciidankayga lagu soo duulaa lagu sheegay inay duuleen dib dambe soo aamusnaan mayno haddii la dooran waayo Soomaaliland waa la baabiyey intayada joogtaana waan soo dacasilaynaa imkaan sheegnaa annaga la kursi reernimaan u leenay in xabsada fadhiyay distoorkay ku qorantay mas'uuliyad baa ku qoran madaxweynaha ku qorantay annaga la kan nin u tartami karaana ma jiro ka doonayaana waa mid doonaya Cabdirasaaq oo kale inuu samaysto oo sala intay doorteen ay balaak miil gareyneen oo ujeedada ay doonayeen war ka bax waxa ninka doonay car hadaa ragtiin soo dhagma waxaan saya ku kaajaan waa qaana ninka kursiga qaata wallahi billahi tallaahi baan uga dambaynay waana nin dalka baabiinay 6 jir anigu aan diiday Soomaaliland ka tago anoo 60 jiraan ka tagay haddii la taabto anuu managaano ma ahaanno kursigeeyaguna waa masaajid nin masaajid baayacay kama duwana orday masaajidada baayaca anaa kule Maxamed Suldaan wararka Hon Cable Hargeysa.